Salaamu calaykum caruurey, soo dhawaada. Adeer Cabdilaahi wuxuu ahaa mid ka soo baxa gurigiisa maalin walba wax yar ka hor salaada maqrib. Dadka intooda kalena waxay ahaayeen kuwa u fadhiya afurka, sugayana salaada maqrib inta laga eedaamayo. Laakiin adeer Cabdilaahi qoyskiisa lamuu fadhiisan jirin waqtiga afurka oo shaqo ayuu ku jiray. Timirtii uu ku afuri lahaa markuu hawsha qabtana hore ayuu u qaadan jiray. Shaqada uu qabta adeer Cabdilaahi waa in marka la eedaamayo uu madfaca rido, waana caado qadiimi ah. Ilaa haddana meelaha qaar way ka jirtaa in madfac la rido waqtiga eedaanka maqribka. Caruure waxaa jira dad badan oo iyaga oo sooman haddana shaqo ku jira waqtiga afurka, sida taraafikada, askariga, dhakhtarka, darawalka ambalaaska, iyo kuwo kale oo badan oo u shaqeeya bulshada. Hawsha iyo shaqada ay ku jiraanna Ilaahay ayay ajar uga rabaan. Caruure, kanina waa adeer Cali, wuxuu tumayaa durbaanka. Inantana waa Xafsa yar, way hurdaa. Markii durbaankii maqashay way kacday iyadoo yaaban oo isle waaba saq dhexe. Waa maxay durbaankan aad maqlayso? Way gabanaysaa. Haddana markii la joojin waayay durbaankii, inta ay sariirteedii ka soo kacday ayay xaggii daaqadda qabatay oo ay furtay si ay u eegto meesha durbaanku uu ka jiro. Adeer Cali wuxuu ku dhawaaqayaa, waa bishii soonka, waa bishii khayrka, hala kaco, hala suxuurto. Dadka xaafadda deganna marka ay maqlaan durbaanka iyo ninka yeedhaya way kacaan, laydharka ayay shitaan, suxuur ayay isku diyaariyaan. Xafsa waxay weydiinaysaa sababta uu u tumayo durbaanka habeen saq dhexe. Adeer Cali Xafsa ayuu u sheegayaa isagoo ku leh, waxaan kicinayaa dadka si ay u suxuurtaan inta aan la gaadhin salaada subax. Suxuurtu waa barako. Qofka maalinkii oo dhan intuu sooman yahay way caawinaysaa, awood ayay siinaysaa. Caruurey, caadadanna waa caado qadiim ah oo waagii hore muslimiintu samayn jireen, ilaa haddana meelaha qaar way ka jirtaa. Xafsa yarna soon ayay isku diyaarinaysaa, suxuurta ayay cunaysaa, biyahana way cabbaysaa.